السلام عليكم صاحبي الله أنا عبد الجليل عثمان وهذا صراحة كان عبد الجليل برو كنال كي دليل الصومالي كنال كان بدنا وحنا سوق بنا هرمها ديجيتال كتكنولوجيا يعني ده هذه التكنولوجيا يوسيدو كلا واحد سواني سيد هذا حياة تروليين دليل الصومالي ما أنت وحنا عيق فدي عبد العزيز ضد وحبي خالان من الاستوديو وأساسها يوم مضحى من الاستوديو هو يوروب أو دن كارهان إنجليز كايو حلو كليه يوم ميلا بدون كوبا waxaan rabnaa halkan aan maanta ku furna gimbalkan waa sida halkan ka aragtaan baba qaarkiin snapkayga la socday qaarkiin waa DJI RS4 marka gimbalkan ayaanu unboxing ku sameyn doonaa waxa kale oo aan wax ka weydiin doonaa himilo waqtigii uu isticmaalay gimbalada mudooyinkii uu shaqada ku soo jiray waxyaabaha gimbalka uu dooran kara RS kan wuxuu kaga duwan yahay RS3 ka horeeyay balahimahaasi ayaanu sameyn doonaa xog yar oo kooban waxaan قف كسرنا أرجعنا وحنا رجعنا أنا واحد كورسان وعلم السعادة 20 plus years أيو كسو جري إلى media هو كسو جري كارهان كاميرا ذا يو production كمان قف كخبرت بدن إنتان هذا media كجران ولا مفريسانين صرف يعني إنتان ما تلا فريسة مركا سجى يعني حتى أن أقول بدون ميكروفون كا أيو حرام يعني أنا مركو على أساس سولو وأنا كاغم هذا علينا صاحب وقتي كاغا I know Somali وانت شفتنا هي صح like waxaad noo sheegtaa how long media ku jirto general horta abjid horta aad baan u faraxsanahay maanta inaan channelka soo fariisto waa the first time horta aan soo fariistay behind desk oo muuqaal ana normal wax duuba so aad baan u faraxsanahay horta channelkaaga is growing ma sha Allah so horta waxaan duubayay and as you know himilo almost over 20 years over 20 years baan ku jiray media production always نمحوا وعنها دتك حسيا قلب عصبة تحسين كان حد خرطة كذا وحنا واحد جدت دتك وجع البانها كاميرا دي أوريسي برجن إبسا وان حسوستا وهي 2023 مركز صباح الحال اللي جري نيكون D70 2003 بعد صباح لكن before that وحنا هيستي 35 مل أحد other Nikon cameras لكن أو digital hand my first digital camera بانك هلا it was Nikon D70 you can Google that. وحن كسي بسدي ميلون هو جون لويس. I was so excited but because what I'm used to a shutter speed aperture إن محوها فيلم كا so هذا خلص ميسو you have to print. مركز أركيس ومدو بعد وعد هذا لكن nowadays تدخل وحس موجا وحي أركان صور كده حكي فيلم كذا شاشة دودا دو خدني هاي لك وسحيان أسيوغا shutter speed وحيالها. سينا ولا 20 years بان كوجر ميديا ما أنت ندي وقور فنيا. ما أنت وقور فنيا. توني يا صاحبي المقارنة مكومية هي على أساس سوى شباب كتير استوديو هيسا. يعني واحد يرى شيء تقدر كصاحب ما هو أنا حلاني قبل هذا بس شيء توقع تقدر حرام أنا مسجسينا. وعلم يبتص على ما كاين وقت ميديا وحرجينا إلى المركز اللي يسوي فريسي. حتى وحكوا هنا جاجد عسل عبد العزيز هو DJI RS4. أوكي. وهذا الليتست هدي أنا قدرين. صح. قبل هذا يسوي صار DJI. Absolutely. أنت استعمالي سيفر هو سيت فهرت قبل يلا وقت لقري. horta gimbalku dad badan baa waxaa moodaa inay waxay ku arkay dad badan oo isticmaalaya markaas ifrutoyb wuxuu leeyahay mataqaanaa si loo isticmaalo wuxuu leeyahay muxuu ahaa wax loogu talagalay and majority of people are arko gimbal khalad loo isticmaalaan reason being is gimbal waxaa loogu talagalay dadka loo dhaho muxuu ahaa run and gun run and gun waxaan ka wadaa for example haddaad joogto production sidan oo kale ah for example gaari baa dibadda imaanaya aroosad ha noqoto ama it doesn't matter what it is waxaa loogu talagalay these toys waxaa loogu talagalay qofka intuu xiran lahaa veski weynaa inuu ku xidho kameradiisa balance ku sameeyo carro inuu soo duubo wixii uu soo laabto markaas and then waxa markaas slowly waxaa loo sameeyay initially waxaas run and gun for promotion videos for wedding videographers, photographers وحيالهاس يكا لو سمي لكن nowadays waxaa arkaysaa dad isticmaalaya iyagoo sameynaya say for example vlogging they have RS4 susbelihin it's not designed for them waxaa arkaysaa dad badan oo kale oo waxay sameynaya say for example documentary and filming oo kale and they're using that to interview patients hadda imagine kan hadda haysano waxay ku xirtaa and you using waa khalad so this tool waxaa loogu soo gal run and gun Soomaali maxaa loo horta run and gun orod social
Ronan Garden baa lagu talagalay yes procedure fara badan ayuu soo maray Sax. hadda waxaan haysanaa RS okay RS3 ga Yeah. wuxuu kaga duwan yahay RS4 baa haysanaa RS4. baa jiray RS2 baa jiray Okay. Okay, DJI introduced waxay bilaabeen inay gimbal waxay gimbalada sameyn jireen waxay ahaayeen waxa la jiro Ronin kuwa weyn bay ahaayeen oo saas loogu filmmaking kuwa weyn bay sameyn jireen Ronin Garden sameyn iyako waxa sameyn jiray qolooyin la dhaho magacooda ugu dhumay waa Chinese brand it begins with S somehow yeah kuwaasi ku kalena way jireen laakiin iyako they were known for berigii hore muxuu ahaa gimbalada waaweyn filmmaking-ka both hands lagu qaban jiray so they started with a Ronin bay ku bilaabeen first Ronin S and then it was Ronin RS2 which I have ani xagan itaala and RS3 ana hadda isticmaalo iyo RS4 oo hadda soo baxday marka waxay kala yihiin RS4 Pro iyo RS4 oo caadi ah so waxa weeyaan the weight of culeyska kamarada baa lagu talagalay haddii yahay light you use RS4 kan haddii yahay kamarada waaweyn ku aan isticmaalo waxa weeyaan RS4 Pro so this is the latest and before we unbox waxaan rabaa dadka dhalinyarada daawanaysa inaan u sheegno there's no need inaad RS4 maanta haddaad ka hesho inaad soo iibsato RS2 waxay samaysaa the same job dadka waan u kala sheegnaa the reason RS4 muxuu ahaa hadda u soo baxday is dadka u duuba vertical mainly this one waxay kuwa kale uga duwan tahay oo uga fiican tahay obviously waa technology cusub waxay u duubtaa waxay leedahay quick release vertical dadka nowadays so some TikTok oo kale kamarada ku xidhan they record vertical markaas it's easy markaas kuwi hore is bit difficult waana yara adjustment kamarada adjustment waxa uu sameeyaa kan same adjustment-iga baad kaliya baad kula bedelaysaa ha easily with dadka waan tusi doonaa within a second to balance it dadku sinisa ha waxay sidoo kale kusoo dareen malayna some features oo extra way kusoo dareen sida Yes. intelligence-iga way kusoo dareen Yeah. mid kale blade-ka lens-ka lagu xiray caddaas way yara dheereeyeen Way dheereen, yes. R3-ga Yes. lens-yada qaar heavy buu ku ahaa Saha. so bro baad u baahan laakiin kan had RS kan isagoo aan bro ahayn Ha. baa release u wata ama Play release ka ha. u wata They made it easier. Hadda. In lens lagu gali karaa at the same time muxuu ahaa weight kana you can handle I believe horta kan ma tijaabin RS4 kana ani RS4 Pro gan tijaabiyay but I believe in a lens capability uu qaadi karaa weight ka waxay I think they increase the weight so this is how many kilos kan we are unboxing RS4 DJI 515 pound of so even ha program was toddoba okay so ha this was 500 like English ka so around maybe 700 US dollars so okay لكن بق عبد العزيز سو كاري كيس كموتان وانو خيامي كيس كيس بعين امازون كتلبط seriously tamaan again normally kuwii hore iibsan jiro lama taqaana waxa la hay car case bel hay yes so guys as you can see muxuu ahaa this product waxa weeyaan Apple telephone qof leh oo kale ba garanaya design-ka waxay ku fikiraysan iyaga u maleynaya box gooni buu leeyahay and you can see manual-kii wakaas 80% of the people will not read this horta ma akhriyaan laakiin waqti sadar rabtaan bugi waa so cidi rabta dabcan way xasan kartaa waxaan fureenaa hadda lugihii baan fureenaa bismillah so this has got saddex lugood bay leeyihiin soo taqaanaan this the legs yoo kaas ku istaagay hay noo furc mashadu maxaa ku jira kaas كان waxa ku jira boss the battery is waxa la dhahay cadaadis isbedel bay ku sameeyeen sidoo kale durability-ga how long I hope so ani ma taskarin wali laakiin normally muxuu ahaa each patch ani aroos ku xaya kan hadda wouldn't so we need to charge it and each patch waxa weeyaan as you can see waxa ku taala 1 2 3 4 afar leg waa 1 hour each waa 4 hours afar saacadood so display kina waa kan cadaadis we yari hawa arkaas amazing so waxa moodaa
moodaa qolal dhaho small ring inay copy gareeyeen design-ka haye ana sidan hadda u arko ya oo blade badan ma soo blade badan oo soo saaran ha so cagekii wax soo saaran ya waka batteriga saasan u xirnay so waanu waxyar baan charger gelin doonaa si aan activation ugu Activation, baahan ha. yahay waa in activate gareeya kana waa plate-kii gelayay kamarada iyo gimbal isku xareeyay ha this is the most important piece of the equipment inshallah wakaas waad aragtaan the main baby kaas no for no kaas no for oh baby for okay horta intaan furin horta wax ka soo siibsi anigu magac baan u bixiyay kan maxaa u bixisay adiga kamarada magacaal bay leeyihiin ya magac kulli magac bay leeyihiin waxaan u bixinaynaa sibo bixina u bixinaa okay ma sha Allah waad aragtaan quruxda waa aragtaan wallahi it's so sexy RS for I feel horta waxa laga say wallahi to be honest with you waa the material ka isticmaalaan totally different way taaba adiga ya kii hor waxa moodaa yara plastic but like this one shirkadaha dadka bay fahmeen anaga ku waalanahay gadgetyada so ayagana waxyar bay ka bedelayaan magaca ka bedelayaan so probably waxa laga yaabaa isbedel xoog inay ku sameeyaan laakiin waxyar update bay ku sameeyaan definitely way ku sameeyaan marka sheena insha Allah so laba ilkood ma taqaana sigara noqo laba si loo geliyo maantusina so boxkan xagaas ka dhigaysaan laba ilkood bas dhehaysan yani waxaad dhehaysan ding ding bas ku xiraysaan hal mar buu galay xagaas ba ka xiraysaan markaas waa lock waa loo garanaysaa lugaha furaysaan wakaas markaas every gimbal wuxuu leeyahay 3 axles weeyaan waa 1 2 3 weeyaan saddexdaas way balance-ka dadka dhiba so the most important thing waxa weeyaan waxa ugu important inaad fahanto muxuu sameeyaa kaas kan muxuu sameeyaa ka muxuu sameeyaa waa saddexdaas to balance waa so waxa weeyaan marka geliso balance buu baahan yahay so صاحبي aniga maadaama aad iga daasheen oo maalin kasta aad kiriya hada khabiir baan haysanaa ani I'll go out of the frame waa ka bixi doonaa wax yar baan charger gelinaya kadibna balance-iga waxaan rabaa inaan u sii dayna cadaasis kaligiis balance-iga noo sameyn doona kadib dib baan soo laaban doonaa si explanation-ka iyo angalada anagu so wax yar baa battery noo soo we need to activate battery-ga inta yar baan gelinayna waan activate gelinayna kadib in less than 5 minutes baan soo laaban doonaa cadaasis baa insha Allah doonaa no plus gareeyo okay see you soon yes guys welcome to how to set up your gimbal RS4 part 2 kusoo dhawaada sida loo isticmaalo iyo sida loo setup gareeyo RS4 today waxaan ku tijaabinaynaa heavy weight R5C bal maanta ku tijaabinaynaa laakiin waxaa loogu talagalay kaamarooyinka yaryar bismillah first thing first guys marka ugu horeysa waxaa sameynaysaan make sure inaa xidhaan all the mechanical points 1 2 3 so this is pan tilt row marka wada xiraysaan baranka yar buu leeyahay dhag waa xiraysaan saas baad u gelinaysaan one dastan guys marka saas u xidhaan wuxuu leeyahay meel laga xiro gadaal yes marka saas u xidho hadda uu xiran yahay uu taagan yahay marka ugu horeysa wuxuu ahaa marka horeysa just call it number 1 number 2 number 3 waa saddexdaas weeyaan balance so koobaad saas baa dhahaysaan upside down markaa sameysaan xaggana furaysaan markaa tartiib baad maxaa u log garanaysaan ya slowly waana dusha fila dadka mistake ay sameeyaan waxay ka bilaabaan hoos waxay ka bilaabaan dush marka xira weesh ma istaa okay marka ugu horeysa aad rabto inaad muxuu ahaad marka ugu horeysa waa inaad ka bilowdaa ka koobaad waa kan yaa ka koobaad markaas upside down like waana u sameeysan xagaasaad furaysaan markaas saas u furtaan waxaad sameynaysaan balance waa qaadi kartaan slowly markaad aragto kaamaradu ay dusha fiirinayso ee hadda settle maha oo maaratan ya saas baa dhahaysaan dib u celiya way cusub tahay waxay u baahan tahay in euro grease inaa la mariyo laakiin haddoo kale is okay dusha yara fiirinaysaa few more seconds wakaas markaas waad xiraysaan markaas saas u xidhan guys waa qaadi kartaan baasha yar xaggaas iskaga leexiya kow taama samayseen talabaad waxaa weeyaan don't forget lock this markaas markaa kaa xidho
كم بحدنا no waxaan sameynaa kan one iloobe kan on this side once you do this saas u fura xagan fura marka kamarada hoos bay fiirinaysaa hoos markay fiiriso dusha u qaada markaas oo yar waa isticmaalaysa this mechanical roll kan igara noqdo Soomaaliga waa albeesteen dhaq markaas way xiri kartaan laakiin haddaad rabtaan market ba ku qori kartaan sida ogaataan lenskan iyo kameradan meesha marayso hadda waad aragtaan way taagan tahay actually ma taagno erasuga waka hadda way taagan tahay markaas waa 2.5 uu taagan yahay waan xiray markaan xiray kan hadda waan sameeyay kaasna waan sameeyay laban hadda sameeyay marka ka saddexaad waa kan ka saddexaad markaa sameeynaysan xagan fura هذا كاميرا حاجة اسمه وعرت مارتان سمعنا سان لنا عكربة جينا سان هذا تعيين ومارتان وحرسان كان حر مركز محن سمعنا هذا وحن سمعنا 1 2 3 وحنو حرسان تنبأ ودرن تنبأ وعدك نمبر 4 يا مركز سمعنا سان وحن سمعنا سان ساس لها هالمر and then saas uma dhahaysaan hadda keeg anigu meel fiican ugu taagan yahay normally haduu saas yahay waa saxaysan xagaas inta furtaan asha yar inta furtaan ba saxaysan marka laakiin anigu meel fiican ugu taagan yahay uu saxsan yahay markaan saas u sameeyo let's turn on wadaarisan bismillah English yes Chinese mana karabna yes skip okay xulay hoos fiiri tusha u qaad waa markuu horeysa saar gacantaada buu tijaabinayaa marka dhameystaan muxuu aad kamarada iyo gimbal isku xidho iyo balance ku yahay manual marka u sameeyso waxa taabanaysaan badhankaas joystick u eg badhanka ugu horeysa joystick hamar ba taabanaysaan marka wuxuu leeyahay star calibration ma taabateen waa sugaysaan until uu noqdo 100% waxaan ku ilooba kan inaan ku diro laakiin uma baahna balance baashan waxaa lahaa Raven Eye waxaa loo isticmaalaa haddaa haysato monitor to control your gimbalkaaga waxyaalaha baashan baa soo iibsanaysaan waxaad ku xiraysaan gadaal hoosta saas baa ugu xiraysaan wireka HDMI-ga iyo USB-C ba ku xirsan kamaradaada markaas waxa uu isticmaali kartaa markaas freely gacantaada telefoonkaaga ama haddaa haysato monitor okay hadda wuu noo dhamaaday wuxuu ku taagan yahay waxa la BF waa BF stands for wuxuu leeyahay actually gimbaladii hore meen lahaayeen these mechanical buttons meen lahayn hadda meesha waxaa ku taala PTF that's for pan tilt follow and then the next one waxa weeyaan pan follow PF the last one waxa weeyaan saddexda button buu leeyahay kan aan isticmaalo waxa weeyaan PF maratan yeah PF pan follow as you can see hadda gimbalkan waxaan isticmaali karaa left to right wad aragtaan laakiin as you can see hal gacan aan ku qaban karaa I can go left right straight up back and then waxaan sameyn karaa adana inaan aragto Abdijaliilo hal gacan aan ku qaban karaa and the joystick kan la isticmaali karaa I can move left and right very smooth sida u aragtaanba yeah so sidaas baa loo saabgarayaa RS4 marka saaxiibayaal sida arkaan Cabdicasiis wuxuu noo sameeyay balancing iyo noo sameeyay iyo setupkii balancing dad badan baa aad ugu rafaado anigu aan ka mid ah xaqiiqada sax aniga halaga in 30 daqiiqo dad waa garanaya oo aad sidoo kale ugu dhibaato practice makes perfect bal maxaa dhacay hadii aad si khalad u gambilka u balance gareey waxa dhacaya gimbalkaaga baa wuxuu noqonayaa bateriyaash wuxuu leeyahay life buu leeyahay saddex motor buu leeyahay motorkaas 1 2 3 saddex motor buu leeyahay haddaad rollni u balance gareyso waa si khaldan waxa arkaysa motorka ama gimbalku ka xumaaday
oo jilcay oo day muxuu ahaa si fiican uma shaqeynayo markaas isku day inaad saddexda mootarba inaad saxdo marka hadda saxdo maana u sax marka hore markaas gimbalka ku sameynaya directional adjustment waxa laga small movement ina ilowday laakiin waxa ku sameynaya muxuu ahaa markaad dhahda calibration ka markaas waa asaga ku sameeyay laakiin always waxay dhaqaaqan asaga waa asaga ku sameeyay laakiin always si khaldan muxuu ahaa ka ilaali lifetime ka muxuu ahaa waxa xumaanaya gimbalka waa battery damage muu geysan karaa no battery maaha the actual motor these motors kun wala motor hadda gimbalka soo samahayo dad baa waxa jira xagan bay qabanayaan marta qaliis hadda you're damaging muxuu ahaa motorka motor ba ku dhacay xagan motor ba ku jirta xagan nizo ya iyo xagan waa saddexda motor baxaad kan waa battery waa tuuri kartaa ya so these hadda damage garayso gimbalka waa khalaas how very important waliba waxa dilay in balance ku sabab hadaan saas oo fiiri I'm damaging the motors waa the same way hadda sameyn unbalance marka san isku day inaad inta taabanin ya inta kore saddexda especially xagaas iyo xagaas u taabo kamarada waa taaban kartaa laakiin too much taad fiiri you damaging so we're very sensitive because kameradan culus kameradan ku xirba aad culus R5C ha kameradan waa 15.5 ha so that means weight culus ku leeyahay laakiin hadda haduu hadii R6 oo cage bay wadata waa arkaa waliba cage buu leeyahay yes so that means RS4 is okay RS4 is okay laakiin ani waxaan ilahaa haduu haysato R5C ama R5 ama above camera wana sita DJI RS4 ka Pro kana sibsen so kan waa main waa medium camera is small camera no large camera no matalgan صح alas dadku sidoo kale khaladaadka ay sameeyaan kamid ah bal movementiga dad badan baa waxay ka digaan dad qaar dhabarka inuu xanuuna dad qaar inay nice shots heleen صح like how maxaa okay camera movement iyo gimbal movement hoto waa different kamarada gacanta ku hayso waxa sameyn kartaa left to right waa easy laakiin hada birtan culus haysato waxa monitor uu kugu xiran yahay oo culus tahay pushkaaga horto saas ma tagnaan kartid waa inaad muxuu ahaa lugahaaga iyo niigaaga saas tiraada hal mar markaas kameradan left hand hada tahay raaxan de raaxan ku qabo left hand kan saas uu qabo ma fahamtay so dadka badan inta badan waxay sameeyaan markay kamarada qabtaan pushkaaga ma taqaana way taagan yihiin so wana sameeyaan kneeskaaga ma taqaana waa inaad wana hoos u dhigtaa marka kamaradaas u heesana jir gacantan saas ba dhaysa jirkaaga iyo takeen saas dhihin so saas ba dhaysa marka lugeynaysa ma taqaana mashimbir baa hadhow describe marka lugeynaysa ma taqaana waa inaad saas lugihii ma aragtid laakiin waxaan dhaqaaqaya ma taqaana serious mover markaas anaa gimbal ah adoona gimbalka qaadan baan ahay gimbal ma aragta saas baan taagan jirkayga gacmahayga saas bay yihiin markaas jirkayga ma dhaqaajinayo aba buriga ma dhaqaajinayo markaan dhaqaaqayo waxaan la dhaqaaqayaa gimbalkii dad saas waxay iska leeyihiin gacmahayga saas bay leeyihiin jirkooda iyo dhabarkooda bay dilayaan so waxay u baahan yihiin practice saas u qabo knees down ana soo qabo markaas waa marka eye level muxuu ahaa monitorkaaga adiga saas oo soconaysa markaas sameynaysa pan to the left you follow see movement ke marta follow left to right smooth hadaan rabo tilt up and down how sameeyna easy markaas jirkayga marka aan sidii uma taagni sidii askari uma taagni anigu dhan bar relaxa gacmahayna tagtin marka tartiib baan u lugeynaya side to side baan u duubaya maasha waa smooth hada markaas sameeyna revealing shot oo kale Abdullah xagaas afrida waxaan ka soo bilaabayaa xagaas oo kale adiga kamarad kuma aadanayo saas oo qabanaya markastaba aan duubo waxaan sameeyaa waxa la dhaho revealing shot waxa qofka meesha fadhiya inaan dadka tuso subjectkii so xagaas ka soo bilaabayaa aniga gacantan this one xaga ma ku taagan tahay like tan waa free so tan baan ugu riixayaa markaan arko as far as you can go mataqaana waan soo celinayaa to your face marka ya dan waxaan sameeyaa waxa la orbit I'm going to follow the subject saas baan soo wareegayaa marka adiga xaga fiiri markaas marka xaggan imaado mataqaana baan kamarada tilt baan sameeyaa hoosaas soo qaadaya
markaas maarta san u lugeen anagu dhanba aniga gimbal jirkeyga gacanteeda gimbal waxa saaxiib على dadka waxa laga yaabaa hadii kameradaada aad slow ka dhigtay oo slow motion aad ku duubtay ha gimbal kaaga maybe slow aad dooratay waa inay aniga slow socdo may ko halkiisa kamerada slow waa comments horta waana fahantaa ay muxuu ahaa washata ku duubeyso slow ku duubeyso you record 120 frames per second you record 100 frames per second you need to know how slow u duubeyso لكن mainly waxaan ka wadaa even adoo u duubay slow motion and waxaas anigoo waliba de hadda am I in focus ha so basically I'm revealing you kale saasas ma sameyn karo because camera was slow motion malada it's not going to work so adigoo waliba slow motion ku duubeyso and waxa sameynsa for example revealing shots saas baan hay the more smooth aan hay even at that slow motion the better because post production and fast one kare kara but I know muxuu hadda for example waxaan ku duubayaa and hadda waxaan ku duubayaa I think waxaan ku duubayaa 120 120 frames per second so I know it's very slow so I don't have to be slow aniga burigayga so I can do this markaas it's fine marta taas kale it's fine you have to know markaas waa important frame koona hadii aan lahayd 60 oo kale then I'll be slow markaas slow ha so qofka operator-ka ku xiran tahay what he's recording your movement kiisa and gimbals marka laga hadlayo sidoo kale aad assistant waxa laga yaabaa inay ka fakarayaan lensyada like focal lens iyo zoom lens bay kala leeyihiin so like markaad shoot-ka aadayso aad mid ka qaadama wallahi that is very good question gimbal iyo kamarada waxaasoo dhan does not make no horto wuxuu tarayo waa ma jiro hadaada isticmaalaynin the correct lens waxaan ka wadaa and hadda waxaan ugu xiran 1535 labadana meesha fadhino uma baahni because waa studio uma baahni inaan tuso wax kasta waxaan rabaa wax yar qurux badan topka inaan tuso so waxaan ku xiran lahaa kan waxaan ku xiran another lens oo 50 haddaan haysto ama maybe wide angle oo 24 lens oo sheeg muxuu ahaa ay prime lens oo kale so waa important waxa duubeyso for example hadda duubeyso aroosadoo kale 1535 waxaan ku bilaabi lahaa muxuu revealing shots holka waxyaalahaas baan ku duubi lahaa oo marka uu soo dhawaado aroosada lens waan ka bedel lahaa the reason why waxa ma taqaanaa is because waxaan tusayaa background-kii aroosadii way ku dhumaysaa meeshii way fuur xumaanaysaa so waa inaad lens ka bedeshaa lenska markaa bedelaysana waana ogaataa lenskan iyo lenska 50 ka same weight ba hadaad garin oo ku xidho again waxaad damage garanaysaa balance kala galaysaa sheekad dhan waa galaysaa afnaana so waa important knowledge kaaga inaad kala taqaano lenska haysato equipment ka haysato weight ku leeyahay hadda this lens aan haddan haysto iyo 50 ga uu isticmaalay waa same weight 24 so guys haddaan rabo gimbalkan inaan bedelo haddaan rabo lenska inaan bedelo sida safety-ga ma taqaanaa waa inaad badhanka taabataan xidhaan markuu xirmado ma taqaanaan haddana aad demisaan hadda waa artaan wuu dansan yahay gimbalkan wuu xiran yahay saas baad taabanaysaan waad furaysaan wakaas waa intaasun then waxaa bedelaysaan lenska dhag 50gaas baa u bedeshay waan geliyey hadda 50ga iyo 1535ka labada lens waa same weight so anyone ogaay haddaan kan geliyo balance badan u baahna laakiin hadduu u baahan yahay balance waxaa ku samayn kartaa seconds 55kaas you see I can zoom so haddii aan zoom garin waa still need to adjust you have to adjust so you don't zoom so don't zoom that 90% dad badan arkay de oo zoom waan arkaa never zoom qofku dhawow this run and gun كما استعمالها go to the person هذا سوب جرينس وكل حد شابوت يا أما مرفوض so like هدي قبل كل حد don't zoom the lens that's you say zoom lens كل حد don't use أنا واحد لا prominence استعمال هذا استعماله سجيمبل بقى قف كله وأنا zoom وحياة عملها ساسا نستعمالها prominence something use tripod sharp استعمال you want to like in a prime lens or adiga yes zoom ka noqoto and then you can
you can from there you can use they can use sidoo kale waxaan tijaabin doonaa vertical-ka sababaha ugu weyn ee aan u soo gatay RS kan waxa uu ahaa vertical-ka aan sheekaynay automatically vertical-ka aan u bedeli karno lacagaas aan tijaabin sidoo kale vertical-ka iyo sida how easy aan u heli karno insha Allah okay so guys wuxuu ahaa RS4-ka waxay dadka wis RS4-kan cusub waxay dadka u yacaan 90% I keep saying the word 90%. Majority of people waxay jecelin hadda vertical videos. Samaha TikTok kulligood the only gimbal seconds u bedeli kartaa is this gimbal. I'll show you why guys. Wuxuu leeyahay Abdijaliilo 2 buttons. Ada aragtaanba waa 2 button. Saas buu taabanaysaa and it's out. Waa ka baxay. Plate-kii baa ka saartay. And then dhinaca kale u gedinaysaa and then focus automatically daawadayaal sida aragtaanba vertical baan u bedelay lacagaas marka camera ku xirsido aragna inuu balance yahay marka okay balance ma noqonayo reason being is wax yar waa laga bedelaa markaas ya so kamarada baan ku xirana hadda as you can see so now let's turn on bismillah wax yar عجز u baahan yahay wax yar u baahan yahay is because kamarada yar culus ma ahan but yes as you can see marka saas dhaho u baahan yahay little bit of balancing but vertically again waxa sameynaysaa on the waxa ka bilaabaysaa as usual labo saddex halaf balance garanaysaa final waxa soo gabagabeynaa saaxiib waxaan ku soo gabagabeynayaa hadaa tahay videographer aad samayso aad duubto muxuu ahaa iska dhe muxuu ahaa models isheeg muxuu ahaa products TikTok tahay conference aad rabto gimbalkan aad rabto inaad vertical ugu duubto this is the gimbalkan weeyaan haddii kale anigu waxaan dhihi lahaa for me it's not RS3-gayga iyo kan wuxuu sameeyaa the same job so uma baahnina inaan soo iibsado oo kharashka inaan galo because vertical mahana sida kale dhan the all ones except muxuu ahaa except waxay ku soo dareen focus points oo xagana yeah wuu leeyahay only RS4 baana laakiin aniga ma isticmaalo kameradeeda baan focuska muxuu ahaa ugu isticmaalaa laakiin other than that wallahi muxuu ahaa aniga gimbalkan is waxa loogu talagalay laakiin dadka u duuba vertical inta badan ani saas uma duubo ani waxaan duubaa mainly muxuu ahaa portraits or push models or vertical model most of my videos as you know so anigu this is not gimbal for me but laakiin hadda u duubto vertical this is the gimbal for me only like that صاحبي على اساس وانا فسحنا وقالك شويه توضح لو قلت لك لكن جد صاحب بص غلط بس قال لي لا هذا ما سنتنا على اساس وحنا قلنا هاي قول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته peace